waxaan rabaa dhalinyarada inaan ka jaahil bixiyo mid yani wadan kasta marka la fiiriyo hadda waxa yani horumarka sameeyo waa dhalinyarada waxaad aadaysaa wadamo kale waxaad arkaysaa dhalinyaro wax soo saartay tusaale waxaa jirta nuuri amalaad Canada Mareykanka meelahan waxaad arkaysaa dhalinyaro horumar sameeyay soo laakiin Soomaaliya ma dhalinyarada Soomaaliya kan ugu fiican wax bartay ee la dhihi karo waa master ama double badge ama yearkiis badge ama dugsiga ka baxay waa kan ugu fiican wax bartay waxaad arkaysaa YouTube ka calaacala TikTok ku jira Facebook calaacala muxuu calaacala subscribe iyo saar follow ida share ida ku jira maalin kasta waxa laga yaabaa intaas oo sano inuu wax soo baranayo waalidiintiisa juhdi iyo ku soo tiiri tacbeeleen awaalkoodan maanta wuxuu ka dhigay yani nin war YouTube ka nina soo saaray waa ma sha Allah ninka wax soo saaray dhalinyaro ah YouTube ka ninka soo saaray dhalinyaro ah waqti wax ku bixi juhdi lacag ka baxday lacag lagu kharash garay waqti ku baxay soo dadaalna waa ka baxay marka waa kamira dhaliimaanta YouTube soo sameeyay laakiin adiga YouTube ka dhaxgashay nin islaamay soo sameeyay waad ka dhaxan calaysa TikTok waad ka dhaxan calaysa waxa laga yaabaa badge inaad horumarka u yahay ama darajada inay tahay master darajada inay tahay doctor laga yaabaa wax barasho qofku wax bartay asiga laga rabaa inuu creative noqdo waxaad arkaysaa dhalinyaro badan oo maanta kule wax baan baranay shaqo wadanka ma jirto dawlad xumaa ka jirto de mushkilada aday ka jirta dawlad xumana maaha adiga laga rabaa inaad wax soo saarto adiga laga rabaa inaad creative noqoto adiga laga rabaa juhdigii iyo wax barashadii iyo mira inaad ka mira dhalaso laakiin hadii aad adigu ma aragtayo intaas oo sana wax soo baratay intaas oo sana lagu soo tacab iyo tiir beelay hadii aad awaalki ka dhigto inaad YouTube dhax fadhiisato cod caasho oo saara yeela subscribe ma aragtay share iyo dhaha full war where's your education wax barashadaada aawe so wixii waalidiintii wax ku soo barkuuta wala lagu tashanaya aawe so adiga is xisaab hadii lagu yiraahdo maxaad u shaqeyn laadahay jaamacadaad ka soo qalan jabisay jawaabta aad bixinayso waxa wadanka shaqo ma jirto wadanka dawlad ka ma jirto waa jawaabta aad bixinaysid laakiin waa wax maala yaani so adiga create waa laga rabaa inaad dadka hogaamiso adiga laga rabaa dawladda amaanta leedahay dawlad xumaa wadanka ka jirto dawlad adiga diyaarso dawlad wanaagsan oo system ku dhisan oo aqoon ku dhisan Soomaali educating method adiga yani adiga diyaar yani wax fiican adiga creative noqo isku day noloshii hadda aad ku soo beertay inaad wax ka bedesho isku day so aqoon-yahan tahay jaamacada ka soo baxday adiga laga rabaa system cusub iyo maqam cusub inaad dejiso adiga laga rabaa runta marka laga hadla ma ahan marka inaad wixii ka horeeyay inaad adigoo maanta wax soo bartay wixii ka horeeyay inaad sugto oo tira war wax isiya warsaan iyala so wax laga xumaado weeyaan marka waxa loo baahan yahay adiga wax bartay adiga aqoon-yahan ah adiga laga doonayaa in aad maqam iyo system cusub timaado dawladda aad leedahay dawlad xumaa jirto dee adiga aqoon-yahan la imaw dawlad wanaagsan wax ka bedel jaanis aad haysataa aqoon aad haysataa dhalinyaro tahay waa nimcad Ilaahay ku siiyay wadankaaga joogtaa waa nimcad Ilaahay ku siiyay hadii laakiin meel lagaaga baahnayn aad maanta dhan ka dawa calayso saan iyal yani isaar share yani ideh maxaan ku raada subscribe isaar deenaadar kaas wax jirma dhalinyaro hadaad doonaysiin inaad wadankiina wax u qabataan yani idinka soo saar ani ma aaminsan wadanka inay shaqo la'aan ka jirto ma aaminsan dawlad la'aan ay wadanka ka jirto soo mushkilada laakiin waxaan aaminsanahay inay dhanka ka jirto aqoon-yahan tahay wax baa soo baratay adiga laga rabaa waxyaabahaas aad u jeedid inaad yani exchange ku sameeysid laakiin hadii aad marka adigii wixii hore ka soo horeeyay aad waxba ka bedeli karan system cusub aan la imaan karan aad yani noloshaada wax ku soo kordhi karan dadka aad yani systemkooda bedeli karan so maxaad u leedahay I am educator waxa la isweydiinaa wax baa baratay niyo fadhiga ka kac baaja haysata master haysata aqoon baa ku bilaaban aad la ima wax yani system cusub ama creative noqo wax soo saar fikir
ninka dumar aqoon leeyahay jaanis oo istaa wax soo saari kara laakiin adiga dawladdan ka soo horeysay hadeen shaqo la'aan jirta adiga system lemo musuqma ka soo qaad musuqma suuqa jira adiga hadda wax soo baratay isku day musuqma suuqa sina bedesho ha isdeen ina musuqma suuqa ag fadhiisato isku day musuqma suuqa inaad adiga bedesho isku day dawladdu xumaan la kulantay hadda wax soo bartay dawladdu xumada ha ag fadhiisano dawladdu xun inaad bedeshid inaad system cusub la imaad isku day adiga day wadan kasta waxa soo saar waa dhalinyaro TikTok gan iyo YouTube gan iyo Facebook gan ka daw cawaadaysid oo ka dhax qaraawinaysid day iyaga naftarkooda wax soo saar waa dhalinyaro asaagaaga oo kala isku day xataa wax kale inaad soo saarto adiga horta adiga isku day dadaalkii wax barasho inaad ka mira dhaliso day adiga isku day halaasa iga waana dhalinyarada waxaan u soo jeedanayaa wax bay barteen shahaadooyin ay wataan shahaado ka soo cilmi ay wataan jaamacaday ka soo baxeen waalidiina ku soo tiir iyo tacab beelayay maantay way soo markaa way soo aflaxeen waxaan kula taliyaa dhalinyarada noocaas waxaan kula talinayaa inay yani system cusub iyagu la imaadaan inay creative noqdaan inay wax soo saar noqdaan meel ay wax ka bilaawaan way haystaan intay ka bilaawayaan aqoontooday ka bilaawayaan alxamdulillah aqoon ilaaha ku siiyay nin xun iyo dawlad xun oo ka soo horeysay ha ag fadhiisan hana daliilin inaad bedeshid isku day adiga waxaad arkaysaa dhalinyaro wax soo baratay waxay soo barteen aqoon-yahaan waxay soo barteen dawladii xun ay jirtay aad saameynaysa iyaga oo ka mid noqona wuxuu soo bartay dawladii xun ka soo horeysay oo ku biira muxuu noqonaa nin xun yani dhalinyaro xun noqonaa bad youth noqonaa marka insha Allah kulay dhalinyarada waxaan ku bogaadanayaa inay markaas horumar wax soo saar war dhalinyaranimo Ilaahay ku hibeeyay aqoon Ilaahay ku hibeeyay Soomaalnimo Ilaahay ku wadankaaga hooyaa joogtaa wax waa soo saari kartaa waxaan kugu bogaadanayaa aniga aan ugu horeeyo inaan noqono dhalinyaro wax soo saari karta dhalinyaro system bedel karta waa application cusub oo uu ku keenay Premier Bank faa'iidooyinka Premier Wallet waxaa kamid ah waad iska diiwaangelin kartaa adigoo jooga goobtaada dadkaan account-ka ku lahayn bangiga Premier waa ay iska diiwaangelin karaan Premier Wallet dukaamada iyo ganacsiyada kala duwan ayaad wax uga iibsan kartaa lacagaha waxbarashada caafimaadka korontada ayaad ku bixin kartaa lacag ayaad u diri kartaa qof kale laguguna soo diri karaa si fudud account-kaaga iyo Mastercard-kaaga Premier Bank ayaad ku xiran kartaa kana maamulan kartaa lacag ayaad ka dalban kartaa asxaabtaada ama waad ogolaan kartaa lacag laga soo dalbaday dhaqdhaqaaqa lacagahagana waad kala socon kartaa ganacsiyadu waxa ay leeyihiin ab u gaar ah oo ay kala socon karaan xogta lacag bixinta macaamiishooda inta ay in ka badan ba ka hel abka Premier Wallet oo kala soo deg hadda Play Store-ka ama App Store-ka Premier